بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور حبيب نادر، طبيب الأسنان في المشفى الصومالي السوداني. أنا أعمل في الصومال منذ حوالي 4 سنوات تقريبا. magacaygu waa Dr. Xabiib Naadir kana howlgala isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudaanees kuna takhasusay cudurrada ku dhaca ilkaha iyo daaweyntooda. Waxaan ka shaqeynayay isbitaalka Soomaali Suudaanees wax ka badan 4 sano. Waxaan ku wargelinayaa bukaanadayda inaan isbitaalka diyaar ku ahay maalmaha Sabti ilaa Khamiis saacadaha 7 ilaa 4 galabnimo iyo 24 saac xaaladaha degdega ah. kahor inta aanan shaqada u bilaabin bukaanada waxaan u sameynaa baaritaano cudurrada faafa si loo hubiyo badqabka bukaanada kale. waxaan la tacaalnaa dhammaan xanuunada ilkaha iyo ciridka sida toosinta ilkaha, bedelida ilkaha, xirista ilkaha, hagaajinta ciridka iyo ilkaha, neerfadilista ilkaha xanuunsan iyo dhammaan xanuunada ilkaha. waxaan ugu shaqeynaa bukaanadeena si ay ku dheehan tahay khibrad, karti iyo hufnaan. waxaan kula talinaynaa bulshada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan caafimaadka ilkahooda maxaa yeelay caafimaadka ilkaha waa badqabka jirka. mahadsanidin.